Meeqa saac ayaad u baahan tahay inaad seexato habeenkii si aad u hesho hurdo caafimaad leh? Hurdadu waxay leedahay wareeg, waxayna leedahay marxalado ama heerar. Heerarka hurdadu waa 5 heer. Heer walbana wuxuu qaataa 90 daqiiqo. Shantaa heer markay ku soo wareegto 5 mar, waxay ka dhigan tahay qofkaasi wuxuu seexday hurdo caafimaad leh. Heerka koowaad waxaa la yidhaahdaa heerka gama'a ka horeeya, qofku inta uusan wali gam'in. Heerka labaadna waxaa la yidhaahdaa heerka riyada soo jeedka. Qofku inuu galo riyo soo jeeda inta uusan wali si fiican hurdo dheer uusan u galin. Heerka saddexaad waxaa la yidhaahdaa heerka hurdada fudud. Qofku wuxuu galayaa hurdo fudud. Heerka afraad waxaa la yidhaahdaa hurdo qoto dheer ama hurdo culus. Taasoo unugyada jirku ay dib u cusboonaysiin isku sameeyaan. Ama uu jirku ku sameeyo unugyadiisa dib u cusboonaysiin. Iyo heerka u dambeeya oo ah heerka riyada, taasoo maskaxdu ay ku samayso dib u habayn waxay maalinkaas soo qabatay, soo aragtay si ay u kaydiso ay u seefgarayso. Shantaa marxaladood marka uu maro qofku waxay ka dhigan tahay inuu seexday hurdo caafimaad leh. 5 lagu dhuftay 90 ama 5 marxaladood oo min 90 daqiiqo ah waa 450 daqiiqo. 450 loo qaybiyay 60 daqiiqo waxay noqonaysaa 7.5 taasoo ah 7 saac iyo badh. Marka qofka weyn ee 18 sano da'diisu ka weyn tahay ilaa iyo 100 ama 100 iyo wax iska dheh. Hurdada uu u baahan yahay inuu seexdo ama nasniyaha ku filan waxay tahay 7 saac ilaa iyo 9 saac. Inta aad awoodid inaad seexatid ugu yaraan inaad seexatid 7 saac. Waxaa la yidhaahdaa 5 saac ama 6 saac ka yar haddii aad seexatid qofka waxaa laga yaabaa in caafimaadkiisa ay dhibaato ku timaado. Dadka qaar waxay u maleeyaan habeenkii hadday dhowr saac seexdaan in yaroo jimicsiyana maalinkii yara sameeyaan caafimaadku inuu intaa yahay. Caafimaadku waa 3 xagal u baahan inaad isu dheelitirto. Tan koobaad oo ah inaad cuntid cunto isu dheelitiran. Maxaa yeelay jirkaagu wuxuu u baahan yahay inaad quudisid oo siisid cunto uu ku noolaado. Tan labaad oo ah inuu raaxo helo jirkaagu. Markii uu soo maro maalin aad u dheer oo daal iyo tacab ah, wuxuu u baahan yahay raaxo. Raaxadaasina waxay tahay inuu seexdo oo helo hurdo ku filan. Iyo tan saddexaad oo ah jimicsi. Inaad samaysid jimicsi. Hurdada bulshooyinku way ku kala duwan yihiin ama wadamadu. Innaga ku Soomaali ahaan waxaynu seexanaa waqti hore habeenkii. Maxaa yeelay haddii la gaaro 10 ama 9 geyga Soomaalidu degto. Soomaaliya kaliya maaha Soomaaliya, Djibouti, Kenya, Ethiopia, meelaha Soomaalidu ay degto. Inta badan dhaqsa laga seexdaa habeenkii aad looma dhafro. Laakiin wadamada qaar waxaa jira habeen iyo maalinba isku si loo soo jeedo. Gaar ahaan wadamada Carabta habeen iyo maalin 24 saac isku si baa loo socdaa, isku si baana loo soo jeedaa. Taasna waxay keenaysaa dhafar qofku inuu la qabsado. Wadanka aad ku nooshahayna saameyn buu kugu yeelanayaa. Haddii xataa aad ahayd qof horay u seexda markaad timaadid wadan aan laga seexan. Si walbood u dadaashid wuxun buu ku jiidanayaa un. 60 sano haddii aad jirtid waxay ka dhigan tahay 20 sano oo cimrigaaga ka mid ah inaad ku qaadatay hurdo. Maxaa yeelay waqtiga 24 saac waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood ama 3 xagal. 8 saacadood oo hurdo ah, 8 saacadood oo shakhsiya oo qofku wuxuu qabsanayay danihiisa oo ku samaysanayo iyo 8 kale oo ah shaqo iyo waxbarasho. Hadba qofkaasi waxa uu ku mashquulsan yahay. 12 habeennimo ama 6 saac oo ah saqda dhexe ee habeennimo. Wixii ka horeysa saacad walba oo seexato waxay u dhigan tahay 3 ilaa iyo 4 saac oo maalinkii seexatay. 12 ilaa iyo 3 habeennimo oo ah 9 habeennimo sidaan Soomaali ahaan u naqaano. Saacad walba oo seexatid waxay u dhigan tahay faa'iido ahaan saacad iyo badh aad maalinkii seexatay. Maskaxdu ma kala saarto dhabta iyo dhalanteedka. Marka aad inta aadan seexan ka hor waxa aad akhrisid, daawatid, qabatid, samaysid, ku fikirtid saameyn buu kugu yeeshaa. Maxaa yeelay habeenka oo dhan maskaxdaada waxaa mirta wixii u dambeeyay ee akhrinaysay ama qabanaysay ama daawanaysay. Filin dagaal ah haddaad daawatid ama cabsi ah waxay u badan tahay habeenka inaad ku riyootid cabsi iyo bahal. Maxaa yeelay maskaxdaadu habeenkaas oo dhan waxay ka shaqaynaysay. Subaxii waxaad soo kacaysaa adigoo daalan. Maxaa yeelay habeenkii oo dhan maskaxdu way shaqaynaysay. Sidoo kale jimicsiga. Habeenkii marka aad seexanaysid ka hor ha samaynin jimicsi. Maxaa yeelay habeenkii qofku marka uu seexanayo heerkulka jirkiisu marka uu hoos aado uu hoos u dhaco ayuu qofka lula qabataa ama lulma qabataa. Markaasuu gam'aa. Laakiin markaad jimicsi samaysid waxaa dhacaya heerkulka jirkaagu inuu kor aado ama uu ziyaado. Waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalka. Waxaan rajaynayaa boqolkiiba hal Allah ka dhigo wax inaad ka faa'iiday.
muuqaalka haddii aad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir iyo raayis weydaarsiya qaybta hoose ee faallada noogu reeb wayna muuqaalka kan xiga insha allah nabadii caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu